السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبية قالقة كسر وهذا مركز علمي تك يوتيوب channel كذا كويس سبسكرايب له هدي أنا لا شوكتنا لا تيجوا فيديو قال لا شير نده كومنت تقولوا واركتيين سيدا كله فيديو قال هدي أكو أركتميل أن يوتيوب هين سيدا تيك توك أو كله صبغة يوتيوب كيجا واقنا صاحبي قالقة فيديو قال ما أنتم حاجين كوه حياة تضبط قضب أو مهم وأي تاين أتكفر ستي مركي أتسوي إبسنزيد لابتوب number 1 waa inaad iska fiirisid laptopka aad soo gadanaysid size-kiisa midaas marka aan ku leeyahay midaan uma baahna aqoon saas ah uma baahna oo adiga ayaa taqaanid laptopka midka u baahan tahay hadii aad aadaysid safarkaaga iyo u badan yahay laptop waxa u baahan tahay oo size-kiisa iska yar yahay oo baagadaada aad isaga qaadan kartid marka size-ka adiga ayay kugu xiran tahay iyo waxyaabaha aad u isticmaalaysid oo kale waxa kale oo doonayna inaad isku ogaatid waxa weeyaan computerka processorkiisa ama CPU-giisa CPU-guna oo macnaheedu ay tahay Central Processing Unit Central Processing Unit kan waxa weeyaan qalbiga ama wadnaha dhan ee computerka weeyaan meeshaas marka waa in aad meeshaas si fiican uga baarandegtid oo meeshaas aad ka fahantid laptop marka aad gadanaysid example waxa jiraan dhowr ayaa jiraan processoro oo kala duwan ayaa jiraan sida Core 3 Core 5 iyo Core 7 qaar ka soo hooseeya waa jiraan kuwa kale oo ka sareeyana waa ay jiraan laakiin saddexdaas ayaan soo qaadanayaa Core 3 oo kale waa midka ugu hooseeya markii oo loo barbar dhigo kuwa kale midka ugu hooseeya weeyaan Core 5 kana waa midka dhexdhexaadka ah oo inta badan dadku ay isticmaalaan mostly dadka inta ugu badan ay isticmaalaan majority-ga midka ugu fiican weeyaan oo haddii aad maanta u isticmaalaysid video editing gaming waxyaabo kale aad u isticmaalaysid programming wax walba waa u qabanayaa macnaha Core 5ka laakiin Core 3ga waxyaabo badan oo san qabanin oo ay ku adag tahay ayaa jiraan sida video editing oo kale waxa ku fiican inaad qaadatid processing sarreeyna soo qaadatid sida Core 7 oo kale Core 5ka xataa ka digara dalaacid marka Core 7 kuna haddii aad isticmaalaysid programming oo kale aad sameynaysid haddii aad office oo kale uga shaqeynaysid uma baahnid markaas inaad lacag badan gelisid oo processor badan aad qaadatid oo Core 7 aad qaadatid waxa u baahan tahay markaas Core 3 inaad qaadatid kaas ayaa ku anfacayo marka mid walba midka ka sii process badan ayaa ka sii lacag badan example Core 3 oo kale ayaa ugu lacag hooseeya Core 5ka dhexdhexaadka ah Core 7ka ayaa ugu sareeya asna inkastoo uu jiro mid kale oo ka sii sareeyo loo yiraahdo Core 9 Core 3gana ay kuwa kale ka hooseeyaan sida Core 2 iyo Celeron iyo kale kuwa la yiraahdo jiraan laakiin kuwaas ma ku hadlayna maanta waxa kale oo la doonayaa markaas in aad computer markii aad ganaysid aad iska fiirisid iyadana generationka computerka oo generationka computerka midka ugu generationka dambeeyay hadda waxa socdaan generation oo waxa socdaan 12 ayaa socda 10 waa la soo dhaafay 12 ayaa la maray laakiin kuwa cusub oo qaaliga weeyaan laakiin waxa helaysaa kuwa oo ah XUK ah oo UK inta lagu soo isticmaalay company-ga lagu celiyay ka bacdi markaas la soo suuq geeyay generationka waxa ka soo bilaabanayaa ilaa 2 markaas 3 5 ama 4 5 6 7 8 9 10 11 ayuu tagayaa markaas generationka marka midka ugu generationka sareeya ayaa asna ugu macnaha ugu awood badan oo uguna cusub uguna dambeeyay laptop ahaan asaga midka isla markaana midka ugu generationka dambeeyay ayaa ugu qaalisan oo generation 5 oo kale waxa ka qaalisan generation 6 midka ah sidoo kale laptop marka aad gadanaysid waa inaad ku dooratid RAM-ka waa inaad ku dooratid oo computerada intooda badan markii ay laptopyada intooda badan mostly waxa ay ku yimaadeen ama ay wataan ku dhexdhexaadkooda ah 4 oo macnaha RAM-kooda 4GB weeyaan marka haddii aad doonaysid markaas inaad wax qabad fiican la aad rabtid sida aad u rabtid oo kale video editing oo kale gaming oo kale kuwaas waa ay sareeyaan macnaha markaas RAM badan waa inaad ku dartid oo video editing haddii aad rabtid 8 wax ka hooseeya ma ku anfacayaan waa inuu 8 ka sareeya RAM-kaaga markii aad doonaysid inaad video edit garaysid haddii kale adoo editkii wadid ayuu isjam gareynayaa waxa uu yahay waa 4GB 8GB 16 32 64 sidoo kale laptopka waxa aad ku dooranaysaa ama ay tahay inaad ku dooratid waxa weeyaan storage-kiisa storage marka aan ku leeyahay kaliya ma ahan qaadka ama size-ka inta uu leeyahay
ma waxa weeyaan 500 GB miya 1000 GB miya ma ahan taas kaliya ina taas kaliya iska fiirisid ma ahan waxa jiraan laba ayaa jiraan storage ayaa jiraan sida SSD iyo HDD HDD-ga waa culus yahay oo waxa ku jira hard disk oo noocan ah ayaa ku jira laptop-yada isticmaala hard disk-kan intooda badan ma speed badna sidoo kale waxa jira SSD ayaa jira waana noocan midkan marka waa speed badan yahay waa orod badan yahay laakiin storage-doodana waa kala duwan yihiin oo markii aad qaadatid SSD waxa u badan yahay inuu yahay 128 GB 256 GB 512 GB ayuu noqonayaa SSD-ga ilaa 1 TB ayuu noqonayaa SSD-ga hard disk-kana asna waa sidoo kale asna oo 250 waa noqon karaa 300 waa noqon karaa 500 1000 GB na waa noqon karaa asna marka markii aad doonaysid wax speed badan waa inaad mar walba dooratid SSD aad dooratid oo hard disk-ka noocan midka uu ku jiro waa HDD midkan marka uu yahana storage-kiisu noocan uu yahana waa SSD si hadaba ku ogaatid computer-kaada markii aad gadan rabtid aad iska checking garaysid waxa aad fiirinaysaa information-ka aan ku soo sheegay intooda badan waxa ay ku jiraan halkan ay ku jiraan oo waxa aad tagaysaa my PC ayaad bahasha kaasada kor saaraysaa ka bacdina right click ayaad dahaysaa right click markii aad dhahdid ay ku soo baxdo information-kan meesha ugu hooseysa ayaad tagaysaa marka aad ku dhufatid Windows-kan ayaa soo furmaayo Windows-ka marka uu ku soo furmo meeshan weeyaan meesha information-ka kaga sheegay Core 5 ayaan ku soo sheegay ama Core 7 ama Core 3 hadda computer-kayga waxa weeyaan Core 7 weeyaan oo halkan processor markii aad dhahdid hore ayaad u raacaysaa waxa weeyaan Core 7 weeyaan meeshaas laptop-kan waa laptop Core 7 ah processor-kiisa aad ayuu u sareeyaa generation-kiisana waa kana waa midda ku xigta labaad weeyaan oo iyadana waxa weeyaan waa 7 generation oo meeshii ugu dambeysay oo 11ka ahayd waxa iga dhiman 4 xabo ayaan ka hooseeyaa waa iska fiican marka sidoo kale waxa uu leeyahay speed ah 1.30 ama 1.3 sida taqaanid speedkiisu waa kaasa marka speedkan halkaas ayaad ka dooranaysaa waa kaasa speedka intaas ayuu u dhaxeeyaa 1.3 1.6 ayuu u dhaxeeyaa speedka sidoo kale halkan waxa ku qoran RAM ayaa ku qoran waa meesha aad ka dooranaysid RAM-ka oo computer-kaadu meesha uu ku jiro weeyaan oo RAM-ka halkan ayaad ka arkaysaa RAM-ka hadda igu jiro waxa weeyaan 16 GB weeyaan waan filayaa in aad fahantay sidoo kale Windows-ka igu jiro waxa weeyaan waa Windows 11 oo Pro ah waliba professional laga wada macna halkaas markaa maraysid intaas waxaad soo ogaatay computer-ka processor-kiisa ama core-ga waxa uu yahay waxaad kala soo ogaatay generation-kiisa sidoo kale waxa soo ogaatay speed-ka iyo RAM-ka oo computer-ka iyo Windows-ka ku jira sidoo kale waxa aan doonayaa inaad soo ogaato hadana storage-ka oo laptop-kan inta uu yahay halkan storage ay ku qoranta hoose ayaad taabanaysaa click ka siinaysaa storage-kiisa waa kana markaas waa 256 weeyaan GB weeyaan oo SSD waaye markaas haddii aad aragtid 256 ama aad aragtid 512 ama aad aragtid 128 waa SSD sidoo kale waxa jirta qaybo meelo kale oo lagu sii checking gareeyo ama lagu sii baaro in uu yahay SSD iyo HDD haddii aad u baahan tahay inaad HDD iyo SSD wax uu yahay ogaatidna ayadana waan ku tusayaa haddaba si aad ogaatid in computer-kan uu yahay SSD iyo HDD midkoo yahay rabtina ogaatid waxa aad sameynaysaa meeshan search-ka ayaad tagaysaa haddii uu yahay Windows 10 search-ta waa uu leeyahay 8 waa ay leeyihiin ayagan marka search-kaas ayaad taabanaysaa ka bacdina waxa ku qori doontaa RAM markii ku soo baxdo calaamadaas ku dhufanaysaa ka bacdina meeshan yarta ayaad waxaad ku qori doontaa qoraalkaas aan qori doono intaas ayaad ku qoraysaa intaas markaa ku qortidna okay ayaad dhahaysaa halkan waxa ay soo baxday solid state drivers oo macnaheedu yahay SSD midka speed ka badnaa weeyaan kan weeyaan midda kale ee muhiimka ayaa waxa ay tahay in aad iska fiirisid computer-ka screen resolution-kiisa ama screen video-ga qaabka uu soo bandhigi karo
haddii uu laptopka oo ku hooseeyo 1080 video qurux badan ma soo dhigayo oo filmaan qurxoon iyo wax ma ku edit gareysan kartid filimka oo aadka u quruxda badan ama high definition-ka ahna 4K-ga ahna kuma daawan kartid oo uu diidayaa waa inaad reduce gareysid oo hoos ka dhigtid screen-kiisa ama video-ga aad wax ka bedeshay haddaba si aan ku ogaano screen-ka ama resolution-ka oo computer-keena waxa aan sameynaynaa shaashada screen-ka caadiga ah ayaan waxaan ku sameynayaa right click markaan ku sameyno waxaan tagayaa meeshan ay ku qoran tahay display markii ku soo baxdana hoos ayaa u degaysaa kabacdi display screen resolution ayaa ku soo baxayso oo waa taas xagga ku qoran marka ay sidaas kugu soo baxdo waad galaysaa meeshana falaartan yarta hoos u jeedaya taabanaysaa mid ugu sareysa ayaad geenaysaa mid ugu sareysa ayuu computerkaadu awoodaa hadda kayga 1080 waa uu awoodaa 1080 weeyaan oo 4K markaas waa lagu samayn karaa filmaan oo 4K ah waa uu soo saarayaa haddii uu 1080 gaari waayo micnaheedu waxa weeyaan in uusan computerkaas uusan lahayn 1080 aad iyo aad ayaan salaamayaa saaxiibayaal wixii aan markaas ka hesheen qaybta hoose ku soo qor oo commentiga ah sidoo kalena la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga faa'iidaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibada qaaliga inta ku kulmi doono video xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh